بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسيديد بقول تضبعتني أفرتي هاد مركي وجوه الرئيسية اللي اخترعي. قام قوية لنا واحد تجيني لو مجعوض كريستوفر شوليس. يكروا هاي هندسة مريكنا. صوت الله اخترعي شيء يعني واحد هيد كلية وحلو قرو. شيء عن كالينا وكيبورد كمبيوتر كا. مقال كنا مانتا وحكوا يفتيم دونا وحي اللي قسمي. يسودو كلا قاب قوشة قيا كيبورد. إما فرقوا كاغا شاها سو قادو قال كان الله يسار هذا نوع عصب تاينا نو سو بير محد سنين keyboardka godadkiisa ama batanadiisu waxaa lagu sheegaa inay yihiin 101 sidoo kale waxaa la sheegaa inay yihiin 104 sidoo kalena waxaa la sheegaa inay yihiin 107 xaraf kolkiisa aan ugu tiriyay waxay noqdeen 104 xaraf 104 xaraf 12 kamida waxaa lagu magacaabaa function key halka 22 kamidana lagu magacaabo command key sidoo kale 26 kamida waxaa lagu magacaabaa letters key 20 kamidana lagu magacaabo numbers key sidoo kale 4 kamida waxaa lagu magacaabaa arrow key halka 10 kamidana lagu magacaabo dual character sidoo kale 3 kamida waxaa lagu magacaabaa windows key halka 3 kamidana lagu magacaabo additional key markaad kala furto keyboardku wuxuu ka kooban yahay 8 qaybood qaybta koowaad waa buttonska waxay ka kooban yihiin 4 qaybood yani buttonka laftarkiisa ayaa uu ka kooban yahay 4 qaybood mechanical access iyo desktop cover iyo metal contact iyo strong spring 4 qaybood ayuu buttonku ku ag wareegaa qaybta labaad rubber sheet waa warqad jilicsan waana ta u dhaxaysa meesha signalka laga dirayo iyo sidoo kale buttonska waxaa laga sameeyaa geed dhicaankii kaas oo laga helo America haddii la baadhana Soomaaliya laga heli karo plastic sheetku waa meesha ay marayaan signalku bayteriga keyboardku dabcan afafka hore ee keyboardka ayuu ku yaalaa kalaami bracket waa lifaaq yar oo isku haya rubber sheetka iyo sidoo kale printed circuit boardka waa boardka ay ku xidhan yihiin microprocessorka ama caqliga keyboardka sidoo kale waxaa la xidhiidha kariyasta sidoo kalena waxaa la xidhiidha switchkii laga daminayay iyo kii laga daarayay wires waa halka yarar oo dabka ka soo qaada bayteriga geynayana sidoo kale boardka conductive lines waa layman ay shaqadoodu tahay inay geeyaan plastic sheetka dabka abkii ayuu u shaqeeyaa haddaba keyboardku sidee xogta aad ku qorto ay uga soo baxaysaa shaashadda markaad riixdo mid ka mid ah butonada keyboardka signal ayaa loo dirayaa conductive lineska oo aan hore u soo xusnay conductive lineskuna wuxuu ku wareejinayaa maskaxda yar ee ku xidhan printed circuit boardka maskaxdaasina way ka qaadaysaa oo waxaa ka qaadaya wayarka keyboardka sidaas ayayna ku gaadhaysaa maskaxda kombiyuutarka hadhowna looga soo saaraya shaashadda kombiyuutarka dabcan waxaan filayaa inaad xog badan ka qaadatay keyboardka kombiyuutarka iyo sida uu shaqeeyo haddaba saaxiib adiga oo mahadsan waxaanu kaa codsanaynaa muuqaalkani waxa uu qalmo mahadsanid. Assalaamu calaykum.